habdhaqashada casriga ee geela gobolkan galgaduud waxay ku xoogaysanaysay 7 sano ee ugu dambeysay waxaana geela lagu hayaa daafaha magaalada iyadoo xanaano joogto ah loo sameeyo abaar iyo aaranba tani waxay sare u qaaday ka faa'iideysiga manaafacaadka geela sida caanaha hilibka iyo gadashadaba iyadoo habkan uu halis iyo dhibba ka yar yahay qaabkii qadiimiga ahaa ee geela lagu hayn jiray meel ka fog ariga iyo awradaaqeenka maxamed faarax sandheere oo ah qurbajoog ka soo laabtay dalka Denmark waxa uu daafaha magaalada Cadaado ku dhaqdaa 2 kadin oo geela runtii aad baa looga faa'iideystay wax badan buu kii hore ka duwan yahay kii hore waxaad arki jirtay xoolaha waa la raacin jiray ilmihii oo baaba'ayo halkan ku tabaalaysan yaa geelina meel barwaaqo ah uu ku dhaleeyay oo caana ku lahaa hadda laakiin waxaan sameynay bridge ama buundo isku xiraysa dadkii iyo xoolihii waa maxay hashu markay dhasho caanaheeda ayaa iyadana raashin ugu filan caruurkana ku filan markaad u eegto xoolaha kale isaga ugu dhib yar hashu rida kama cirweyna waxa raashinka badan qaata waa looda oo kale kan raashinka haddana waa loo qiyaasaa isugu kala liito yaa loogu kala badiyaa wala xiriga roobta waa xilliga kaliya oo shinsano sababtoo ah dhirta baxday ayaa ku filan geelu wax raashin uma baahna hadda xilligan haddaad u dhigto raashin kasta oo hore u xiisayn jiray waa cagtu ku dhifanaya wax cusbo ka badan uma baahna geelayda waqtigan waxay ka faa'iideysanayaan tiknoolajiyadda casriga ah oo ay ka mid tahay internetka gawaarida iyo taleefanada gacanta oo ay ku ogaadaan dhulka nacfiga leh iyo beeca xoolaha waa kan cali jaamac aadan oo dhowr fac ku soo noolaa dhaqashada geela socdaalku aad buu u sahlan yahay waxa weeye wax weyn oo dhaqankaas iska bedelay hore waxa weeye hada neefka adeer hadduu ka baxsado asagoon siginkaasi socon taleefon lamar baa lagu qortaa hore qofkaas oo wacaya taleefon baad u dirsanaysaa adoo jooga neefkaaga haddii xataa uu inkaa xado isagoo beledweyne ama xamar la marsiinaya qofkii taleefonka loo geeyaa nambarka soo wacaya waxa la hel casri wax badan baa sahlay waxa sahlay baabuurka waxa sahlay taleefonka waayo hadeer baabuurkan baan ka haysanaynaa waxaan tagaynaa dhulka meesha ugu shishaysa naqbaan ku soo arkaynaa geela ragii aan uga tagnay baan taleefon soo dirsanaynaa ayagoo soo wada baabuurtii iyo geela ragga kale soo waday annaguna waa uga horimaanaynaa markaasaan geynaynaa dhulka daaqsintan ma jirin waagii hore lugta lagu saamin jiray bilbaa ninka saanka ama 20 beri uu maqnaan jiray ama waa la iska kaxin jiray geel waa la iska dabageli jiray maareynta caanaha geela ayaa ka mid ah dhinacyada horumarka ay ka sameeyeen geelayda waqtigan waxaana caanaha oo batay ay keentay in liitarkii uu gaaro qiimo ka yar $1 waa kan mar kale maxamed faarax awal caanaha ratiba lagu qaadi jiray ama dameer baa lagu qaadi jiray ama dhabar baa lagu qaadi jiray hadda gaadiid baan u sameeyno gaadiidka ayaa maarta lagu qaadaa halkaas waqtigii spare time baa ka yimid waqtigii ayuu yareeyay kow waxa soo haray haddii ay dhacdo inay soo haraan frontier baa la geliyaa waa la qaboojiyaa waxba iska bedelimayaan balse baahidaaba loo qaba caanaha ayaa markasta caanaha ka badanba oo in aysan daahinba u badanta wallahi anigu meelo badan baan geyn jiray dhuusamareeb baan geeyaa hadda laakiin awal Cadaado godin laba wada geyn jiray hadda laakiin anigu toos waxaan ahay dhuusamareeb meeqa liitar oo caana ayaa muxuu u bixigaysaa magaalooyinka maalintiiba wallahi waxay ku xiran tahay hadba geelu sidoo u dhalo hadda xilligii hadda la soo dhaafo dayrtaha geel badan baa dhalay aniga oo kale 80 halaad camal baa ay dhashay marka caana badan marbaad 400 oo liitar geynaysaa marbaad ama wax yar ka yareynaysaa ama ka badinaysaa geel caana badan baa laga helaa lana geeyaa hadda marka hadba dhalmadiisay ku xiran tahay ujeedadeenu ma ahayn inta geela caanihiisu qaaliyoobaan in lacag badan laga helo laakiin ujeedadiisu waxay sidii uu qayb uga qaadan lahaa nolosha dadka deegaanka oo horumar ay ku gaari lahaayeen waayo haddii la yiraahdo koobadii caanaha $3 weeye imisa ayaa inkamkoodu $3 dhan yahay waa maya annagu waxaan rabnaa midka faqriga ah oo waxba haysan iyo kan xoogaaga fiican haystaba in ay wada saameeyaan oo geela ay dareemaan oo ay nolol fiican ka helaan oo caanuhu ay wada gaaraan geelu muddo dheer ba Soomaalida waxa uu ahaa kan ugu qiimaha badan ee ay dhaqdaan balse qorshe la'aanta waqtiyada abaarta colaadaha iyo biyaha oo yaraa ayaa sabab u ahaa inaanu nacfi badan laga helin haddase qaabkan cusub waxa uu muuqdaa mid ka tallaabsanaya caqabadahaasi maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka Cadaado.